الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. خواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كدب كلمة كوابا waxay ku saabsan tahay خصال مطلوبة من المرأة المسلمة. waxyaabo dhowr oo tobaneeye ah oo laga doonayo walaasha muslimadda ah, hadday yar tahay hadday weyn tahayba, taasoo waxyaabahaasoo ay ku wanaajinayso xidhiidhka ay la leedahay ilaahay iyo xidhiidhka ay la leedahay ehelkeeda iyo xidhiidhka ay la leedahay ummadda. haddii intaasoo xidhiidh ku wanaagsanaadaan waxba kaama xumaanayaan insha allah. arrinta u horeysa waxa weeye attaqwa min allahi tacaala, inaynu ilaahay ka cabsano. gabadha muslimadii mar walba waa inay nafteeda qiimayso, talow alla ka cabsigaagu halkuu taagan yahay, iyada oo aad ku dayanaysaan xaasaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam. xadiid saxiixa waxaa ku sugan maalin maalmaha ka mida nebigu wuxuu yimi xaafadiisii ama xaaskiisii caaisha. waxay aragtay nebigoo markuu soo galay cadhooday. kuma sahlana cadhada nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxay leedahay atuubu ila allah, ilaahay baan u toobad keenayaa nebi maxamedowe, bal waxaad aragteed ka cadhootay ii sheeg. markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi waa maxay daahan sawirada ku yaallaa? iskumaynu ogeyn. sawiradana sharcigu waa diiday. daahiiba way soo qaado way kala jeexda. maxay ka eegaysaa? waxay ilaahay kaga cabsanaysaa wuxuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam. marka walaasha muslimadda haddii saygeeda ama ehelkeeda ama culimadeedu ay u sheegaan wax diinta ku xun, waa lagama maarmaan si degdegana inay u qaadato ugana toobad keenta gefka ah. halka laga yaabo dadka qaarkood inay calaatamaan. calaadkuna waa waxyaabaha cadaabka iyo kibirka keena. waxa labaad oo nebiga su-aal weydiisay sala allahu calayhi wasalam saxaabiyad, haddii saxiixa weeye, waxay leedahay dumar baa layla qabaa, bal ka waran waxaanu ninkaygu isiininba. haddaan anigoo iska tiirinayo u faanaya ta kale aan idhaahdo waxaasuu isiiya waxaasuu isiiya, waa faan iyo tookh, waxna kama jiraan. markaa nebigu waa diiday wuxuu uhi almutashabbicu bima lam yucطa kalaabisi thawbay zuur. kalaabisi thawbay zuur, qofka iska dhargiya waxaan la siinin wuxuu ka dhigan yahay laba maro oo dembiya qof hilaabanoo huwan oo kale. halkii bay ku joojisay. falsafad kale iyo jaafaajiriq iyo muran nebiga labay gelin sala allahu calayhi wasalam. waxyaabaha dembigaa buu ka mid yahay markaa beenta iyo faanku, waana iskaba dhacda xaawalayda qaarkood. waxaanay haynin inay u faanaan kuwa kale. waa cabsidii bay u taagantahay taasi. cibaadaduna waa laga maarmaan. ilaahay addoonta muslimadda ahi inay caabuddo oo ciyaalka iyo caruur ehelka kale iyo odayga iyo aanay cibaadada ka mashquulinin, waayo waa xaqi u weynaa. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisu soo maraya iyagoo gidaarkaa xadhig ku xidhay oo markay daaleen habeenkii xadhig cuskanaya. iska kala daaya buu lahaa cibaadada. hadday dhacday innaga in laynagu muslaxayo cibaadada, hadda waa laga muslixi jiray xaasaskii nebiga oo iska kala yaraya ayaa la odhan jiray iyo cibaadadii daalin. xaasaskiisa mid ka mida buu arkayaa wardi wadda oo ilaa saaka maalkiibaad sidii u wardiyaysa oo sidii unbaa dikrigaa u waday, bal kanaa ka koobanoo kuugu filaanaye dikrigan kale ku bedel. uu ka yaabay nebigu. halka laga yaabo innagana telefoon iyo facebook iyo gambaraynu fuullo inaynu ku fadhiisano, dabeedna wax badan oo hadal iyo maxay tidhi iyo muxuu yidhi aynu wadno. shaqadeenna iyo wakhtigeenna cibaadadaynu ku buuxinaynaa. waxaa saddexaad oo tusaale wuu waaniyey nebigu xaasaska iyo hablaha iyo hooyooyinka. wuxuu aada ugu dhiiriyey sadaqada. markiiba waxa soo dhaqaaqday xaaskii cabdullaahi ibnu mascuud
الله كرالي النقضاء بل كورن بين لا يدي عبد الله بقى واحد كور السنة ينطلوا الصدقة دي يلا الشيء ولا يسكوا أبابولي صدقة دون أنا بحية بكوجو بحيسة طلعوا وين جو بحيسة ها ورملا يدهم كوجو بحيسة هذه جاي عيالك نبي هدي لو يدينا وحول عبد الله رب شاقة صدقة أنا دون يسبح وضيق يعرف تنسي معناه إذا وحنا قد شهدان وسوق قادرينا دق بها شري جوابها وعدك هذا كان كقاضته هدانت جوابتي سصد أخصاء ولا إيمانون الدجنين حجوا كون قرية وحين نوبها هذا أرنت اللبادة إن لو وناتشيو حريرك أضيق إيو كي أوبت الله هذا ولا بد من صبر المرأة قولنا مسلمات دا يابها عنك كنت هاي تكافرات دا كقد وانت هاي وحكم دا صبر إني صبرته وحيابها يكون صبر يستنى وحكم دا على فقر رجل نينك ظروفته هاي صح تاسنا وينقو بدن تايمك مركا أدي مركا وحكاية رأس النقدان بقى دكتور فرين طلبته والدنبي صبر عكت أودك وكادي حالة الله قيمة هين لآني هاي هيسوني هكرشك أهين هدقدقين نبي واحد الكبر كستون كذا ويدي سفرين جنة واك حرام مركز سبب الآن فرين طلبني المختلعات هن المنافقات تمرك العكس وابندق يا ورنا ينك اسكا كيفر وان كاتجا يا ومنافق هذا بنبي منافق هذا منافقنا هذونا ومصيبة وين وما كرينا مركز صبركو وحولين نوعية بدن كورنا مسلمات waxay ku sabraysaa faqriga ninka bukaankiisa kuwa ciyaalka hawsha ka timaada ehelka xaqiisa ehelka xageedaba sabirkii macsiyada ay ka sabraysay sabirka cibaadada ku sabraysay waxa soo dhamin sabir bul ayaa loo baahan yahay goorku ma aha meel jacayl yar iyo raaxo yar laga raadiyo ma aha waa meel ilaahay loogu cibaadaysto subhanahu wa ta'ala sidaas oo kale ayaa ay ahaayeen xaasaskii nabiguna oo ragooda ay u sabri jireen oo ay xataa ku sabri jireen agoonnimada asxaabigii la odhan jiray Abu Darda baa geeriyooday xaaskiisii qiimaha badnayd baa waxa doonay inuu guursado Muawiya ibn Abi Sufyan madaxweynihii muslimiinta madaxweynihii baa soo fadhiistay oo gabadhan muslimadda doonay inuu guursado waxay tiri diyaar ma yihi waayo nabigaan ka maqlay sallallahu alayhi wasallam ruuxa dumarka ahi marka ay jannada gasho ninkeeduna uu galo way isku guursanayaan marka ninkayga aan jeclaa Abu Darda sabirka badnaa ninaan ka dambaysiinaya ma jira agoonnimadaas ku sabraya iyo caruurtayda inaan koriyo tadhiyatul mar'a la budda minha ruuxa dumarka ahi marka waa inay ku sabirtaa duruufta iyo hayn xumada ka imanaysa adduunyada taana waa siday sameyn jireen xaasaskii nabigu waliba qof dacwada wada ama diin ku hawlan ama danaha caamka ummadda ka shaqeynaya markaad ag joogtay oori ilaahay uu kaaga dhigo isaguna uu sabrayo adiguna la jaan qaad wuxuu doonayaa baad doonaysa hadduu khayr doonayo maxaa kaa reebaya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa kii iska daayay adduunyada ظروف dhaqaalaha mararka qaarkood ku imanaysa isaga xaasaskaba markii ay masaariif weydiiyeen ku yara adkeeyeen suuratul ahzaab ilaahay waxa uu ku sheegay in la yiri nabi allah dumarka u yaad waxaad ku tilaa in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila hadda adduunya doonaysaan wala idin misiya kala yaqaat laakiin nabigu idin furaya hadda doonaysaan ilaahay aakhiro janno ajri weyn ku sabra faqriga iyo hayn la'aanta macna hayn la'aanta ku sabra uu nabigu sidoo baashan uga haajiray marka han weynaantu kuma jirto asha adduunyada aad loo daba oroodo oo lagu raaxaysto dareenka gaalka kale loo yeesho laakiin wanaaga qofka wada walaalkaaya waad la xijinaysaa hareertaad la qabanaysa waxaynu u baahannahay oo arinta saddexaad ama afraad التعاون والتكامل مع النساء المسلمات إنay hablaha iyo hooyooyinka muslimaadka ah dadka islaamku wada jir u shaqeeyaan wada jir waa inay wax u islaaxiyaan oo hagaajiyaan
halka ay dhacdo dadka qaarkood inay wada jir wax u fasahaadiyaan ama wax u kharibaan mar walba anteenadoodu way taagan tahayoo shaydaanka iyo balaadiisa iska ilaalinayaan markaa yatakaamalna walaa yatanaaqadna iskama hor yimaadaan oo isma duqeeyaana way isdhammaystiraan waxay isku dhammaystiraanna waa wanaagga iyo khayrka hadday jaar yihiin iyo hadday isku magaalo yihiin iyo hadday ehel yihiin iyo hadday isku madarisad yihiin mar walba waxay isu kaashanayaan danaha reerkooda iyo danaha ummadooda iyo danaha aqoontooda iyo waxbarashadooda cilmigooda iyo cibaadadooda waa dad wada jir bay u shaqeeyaan halka laga yaabo ummadaha shisheeye inaanay isba salaaminba marka haddaad dabadaha marto dadka jaarka ah iyo dadka isku magaalada ah iyo qofna qof lama hadlo qof waliba kildhib uu madaxa kula jiraa qof waliba meel gaar uu ku urursan yahay inagu sidaa ma yihiin waa dad isku jir keliya baynu nahay marka waa qadiyadaasna tacaawunka iyo takaamulku aad buu muhiim u yahay waxaa laga yaabaa haddii imika halkan dhowr boqol oo dumara ku fadhidaan oo aad tidhaahdaan kulankaa sheekhu isugu keen yeedhay maxaynu uga faa'iideynaa waxaynu uga faa'iideynaynaa meel heblaayo aynu caawino kow mid waliba ha keento $5 ama 40,000 lacagtaasi marka intaasoo qof lagu dhufto waxba laga yaabaa madrasad 3 fasal inay dhistaba Soomaalideennii hore dhaqankooda wanaagsan waxaa ka mid ah midna ciidaha iyo markay isu yimaadaan munaasabadaha balbalaaran sanawiga dadku waxay ku soo talagali jireen lacag waxa la oran jiray xooggan tiradan badan dadka isu yimi maxaynu uga faa'iideynaa mararka qaarkood waa laga yaabaa in oran jireen wadaadkan sanadka dhan ina soo tukinayay aynu siyaaro siino qof waliba uu ku talagali jiray bariba anigoo miyiga tagay ayaan ciidii tukiyay dadkii markii aan dhameeyay dadkii way kiciba waayeen marka qoladii gudida hay'adda magaalada ku maxay doonayaan wacdigiina u jeedina salaadiina u dhameynay marka waxay dhahaan waxa doonayaan tabarruc inaad ka ururiso iyo siyaaradii sanadka laga qaadi jiray wadaadkii ma joogo de marka way siyaaradii laga ururiyaa danahooda la galiyaa idan waxaynu u baahanahay xooggan oo kale tirada inta la eeg marka la isu yimaado wacdigii la qaato cilmigii la qaato cadaagiina inuu raaco waan ku talin lahaa cadaagu waxa weeye deeqda marka meel la isla garto oo ugu habboon baa looga faa'iideyn lahaa marka tacaawunkaas aynu shaqaynaynaa oo la iskuna bartaa la iskuna jeclaadaa jannadana la isugu raaci karaa waxay leedahay saxaabiyadii qiimaha badnayd Asma bintu Abi Bakar ما كنت أعرف أن أخبز فكنا نساء الأنصار يخبزن لي وكنا نسوة شدق ما أقولنا كما في عناي فرسموين كان كبيست إيو عن شيرة إيو وحيابها الله فرسمايو أما الله قوش أما الله ترتيبيو ولا غير في عنا لكن دمر وفي عنا غير أنصار هذا أيها رمها يبرج لها ببقى وحلا كريه أما نقالها جورجيا نظام كاس aadna saaxiibada wanaagsan bay u ahaayeen ayaa ay leedahay marka kaba cabanayse walaaleeda muslimaadka jaarka ayay ku faanaysa waxa shanaad oo waxyaabaha laga doonayo gabadha muslimada ah alxanaan washafaqa min almar'a jacayl ay u qabtay ehelkeeda haday tahay odayga caruurta dadka la jooga inay nafteeda kula dadaasho bal sidii ay jacayl ugu abuuri lahayd waayo xanaanka iyo naxariistu وأوحي إلهي نقول حريصنا سبحانه وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيحين كوحة وكو أمانة يا طمر كي قريشات ويوين كي هبله أهل كيسها بركساوح خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده dumar waxa uu wanaagsan dumarka Quraysh dumarka reer miyiga gaadiidka foola waxay ku wanaagsan yihiin buu nabigu caruurta iyo odayga ilma yar waa kuwa ugu wanaagsan u korin badan oo naxariis badan ninkana waa kuwa ugu fiican xagga marka la eego maalkiisa dhaqaalihiisa marka wuxuu nabi maxamed ku amaanayaa hablaha qiimaha badan ee reer Quraysheed inay arintaasi dhaqan iyo caado u tahay marka naxariista qofku uu qabo dadka ka ag dhow ehel iyo asxaaba iyo jaarba islaamkeenu uu ku amaanay
sidaa uu nabigu ugu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam arrinta lixaada dumarka madluubkee laga doonaya waxa weeyaan xayaau lmar'ati almuslima xishoodka sidaynu ognahay nebiguna wuxuu ku tilmaamay xishoodku inuu yahay iimaan kolba qofka xishoodkiisu intuu leegyahay xumaanta uu ka xishoonayo ayaa iimaankiisuna uu leegyahay hadduu xishoodkiisu weeye iimaan weyn bay taasi sheegaysa isaguna waxa uu ka xishood badnaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inan da-yaroo dhallinyaro ah oo gurigooda joogta oon bannaankaba u bixin alcadaraa gabadhaa la yidhaahda asturan ayuu ka xishood badnaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka haddii xaflada loo baxayo maaha in la isqaawiyo xafladaha tasaxdee diinta ku wanaagsan baa la tegi karaa dumarku ma aha ragga ajaanibta inay salaamaan inay la sheekaystaan inay la safraan inay la gooni noqdaan inay afka la galaan wakadalik waa nasiib daro ablaheenii iyo hooyooyinkeenii oo iska xijaaban oo sida kale isagaba fiican doorashooyinka ayaa waxaas markay yimaadaan ayaad arkaysa iyagoo qaarkoodna xijaabkii tuuray qaarkoodna marada lulaya oo markaa karaamadii iyo miisaankii ruuxan dumarka ay lahayd wuu yaraanaya markaa xishoodku wax alla wixii xaaraan ah oo dhan gabadha muslimadii intuu ninku ka xishooda in ka badan bay ka xishoonaysa arrinta toddobaad ee madluumkii waxa weeye shajaacatu lmar'a gabadha muslimadda ahi waa geesiyad oo had iyo jeer maqaadiiruhu marka ay dhacdo maqaadiirtu markay timaado maaha dadkii barooranayay ee qaylinayay ee u qaadan waagu ku dhacayay waxaynu garanaynaa ummadda kii ugu fadli badnaa ee rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam waa nebi maxamed inan yaroo da-yaroo hablihiina halkan fadhiyaba qaar badani ka weynaayeen oo caaisho la odhanayay waa xaaskiisii ayay laabteedu ku dhintay nebigu rag kale oo waaweyn iyo wasiiro iyo saaxiibo iyo midna ma haynin halkaa markuu ku dhintay maradana may tuurin dhulkana islamay dhicin mana qaylanine aayarunbay nebiga jiifiso waxay tihi ragow nebigii waa dhintay balada arrintaa eeg halka laga yaabo mid kale ninkeedii ay jeclayd hadduu saa u dhinto oo kalena waalan lahaydba markaa qadiyadaasi waxay sheegaysaa tababar uu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam geesinimo ay leedahay qadarkoo ay ku kalsoon tahay waxaa kaloo aynu ogsoonnahay cilmu taariikh ama siiradan idhaahne nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo kacbada agteeda jooga kolkay gaaladu dusha ka saareen mandheertii ama mindhicirkii neefka geela ah waa wasakh bay dusha ka saareen nebigoo sujuudsan cabdullaahi ibnu mascuud oo goobta fadhiya wuxuu yihi waxay iga geesisanayd nebiga inantiisii faadima intay soo carartay ayay nimankii u kala tirisay kolkaasay dabeedna ka tuurtay wixii ay dusha ka saareen marka arrintaasi way dhacdaa qofkii oo iskaba cibaadaysanayo sida kale isaga fiican baa maqaadiri dhacaysa ama kaag iyo u qaadan waa ayuunbaa ku dhacaya waxaa lagu odhanaya heblaayo way suuxsan tahayba hebelkii ka dhintay ama heblaayadii ka dhimantay daraaddeed ayaa waduuba go-i gaadho dhowr cisho bustaa lagu daday geesinimee loo baahan yahay iyo qofkan in nolosha iyo sunnada adduunyada la qabsado oo uu ogaado arrinta sideedaad waxa wey inqaadu lmar'ati almuslimati lizawjiha gabadha muslimadaahi waa inay taliyaheeda qoys mu-asasad waliba taliyay leedahay iyo mid go-aanka leh saygeedu waxa wanaagsana usoo jeediyo waa inay ka tala qaadato oo haddii la kala dambayn waayo dhibkeeday leedahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiid saxiixa oo bayhaqi iyo aimo kaleba ay warinayaan khayru nisaa'ikum alwaduud dad yahow dumarkiina waxa u fiican gabadha muslimadda ah ee tarmaysee ninkeedana jecel almuwaatiyatu lmawaasiya ee ninkeeda amarkiisa qaadanaysa xidhiidhinaysa ida taqayna allah kol hadday ilaahayna ka cabsanaysa ay xaqii ilaahayna bixinayso wa sharu nisaa'ikum almutabarijaat almutakhayilaat wahuna almunaafiqaat dumarkiina waxa ugu shar badan kuwa isqaawiya khiyaaliga ku nool ama ninkaba diidaya ee kuwaasna waa munaafiqaad buu nebigu laa yadkhulna aljannata laa yadkhulu ljannata minhunna ilaa mithlu lghuraab alacshar jannadana waxaa ka geli kara uun in la eg tukaha cagaha iyo afka cas
tuka cagaana cas afkana cas intaynu aragnaa wuu yaryahay marka waa naadir kuwa noocaasa ilaahay rasuulkaba khilaafay wax yar baa jannada ka gala baa laga fahmaya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka qoysku inuu inoo dhisnaadaa waxay ku xidhan tahay in hayadu badato haye hebelow ma sidaasaad sheegtay haye aqbalay waan yeedhi waan soo fulinayaa insha allahu xasba alistitaaca intaad kartaa unbaad fulin doonta marka hayadaasi hadday iman weydo dee hadal kalunbaa bilaabmi waa wixii wanaagsana sharciga ku fiican baa la isku adeecayaa arrinta sagaalaadeen ka dhigi lahayn waxyaabaha madluubka ee gabadha muslimadda laga doonayaa waxa weeye wacyu lilmar'ati almuslima inay tahay qof soo jeeda oo waxa la kala macaashaya iyo waxa adduunka ka soconaya iyo meesha la isla marayo qof ogsoon waa inay tahayoo aanay qof qaafilad ahayn waxyaabaha ay ku baraarugsanaanaysa waxaa ka mid a inay diinteeda ka barato wixii waajib ku ah waayo aqoontu wax badan bay ku tustaa toosh kugu noqotaa gabadha muslimaddii markaa waxay garanaysaa takhdiidka cadowga ummadaha shisheeye ee gaalada ah ee gacalka iyo sokeeyaha isaga keendhiga shirqoolladay soo samaynayaana innaga iyo carruurtaba inagu hayaan baad garan doontaa haddaad waaciyo tahay oo garaadkaagu sarreeyo mushkiladda tiknolojiyadaad fahmi doontaa tiknolojiyada agabkan iminka aynu isticmaalayna internetka mobaylada tviyada kombyuutarada waxaasoo dhan iyo waxa ku jira iyo khatarahooda ayaad garan doontaa waxaad garan doontaa khatarta ay leeyihiin alquranaau suu saaxiibada xunxun adiga iyo carruurtaba siday u lumin karaan waad miisaamaysaa waxaad leetalo saaxiibkii xumaabaa kale masaaxiib wanaagsanba maxaad ka macaashtaa muxuu ku yeelaa waad xisaabtamaysaa inuu durbaanka u tumi mays waxaad garan doontaa haddaad waaciyo tahay alcaadaat sayi'a fi daakhili waalkhaarij dhaqamada xunxun ee soomaalidu ay leedahay inaanay ahayn wax qadaasad leh oo lagu faani karo dhaqanka iyagaa sidaana dhaqankii reerheeda dhaqankii wadanka ma odhanaysa waxaan sharcigu khilaafsanyo sax maaha iyo dhaqamada shisheeye dadka qaarkood inta ilbaxnimo moodeen ay soo waarideen waan dul marnoo si degdeg aynu u sheegnay waa naga yaabaa culimada qaarkood inay muxaadaraadkan ka hadleen waxaan odhan lahayn hooyadan iska fadhida una ilmaha yare ku dul shaxayo laga yaabo isagoo khatar ku jiro oo bad dhexda baalay inaanay kaba warhayninba oo laga yaabo inay lacag ugu shubto isagoo fasaadkii wada arrimahaasoo dhan inaad ku baraarugsanataan shirka lagugu yeedhayo hay-adda kula xidhiidhaysaa saaxiibka waxaasoo dhan baad dib u eegaysaa waxaad leedahay waad xisaabtamaysa horta adduuniya aakhiraba waxaan shar iyo khayr maxaa ku jira marka arrintaasina ugu dambayntii garaadkaasi waa inuu dhisnaado waxaana kuu dhisayaa caqiidadaada iyo cilmigaaga samaawiga inaad wax ka barato culimadana wax ka faa'iidaysato markaa tobaneeyadan shay baan kusoo koobi lahaa tawjiihaadki iyo tilmaamihii anigoo cujaalatan ama si yara degdega u dulmaray aadna waa u mahadsantihiin wajazaakum